maanta halka aan joogno waxa waaye xaruntii golaha shacabka runtii waad ka waraysaan ajandadii shalay la soo diray oo lagu sheegay inuu yahay ajanda looga hadlayo COVID-19 waxaa wax lala yaaba ah laga xumaada ah COVID-19 dalkan 2 bilood ayuu ku jiraa 2 bilood oo lagu leeday oo dadkii ugu badnaa ay ku dhinteen aan laga hadlin oo aan lala xisaabtamin wasaaradda caafimaadka mar uu hadda sii gabagaba yahay in dadkii lagu marin habaabiyo COVID-19 ayaa ka jira iyo wax lamida runtii waa wax nasiib darro ah waxaan aaminsanahay ajandaha la soo diray COVID-19ka lagu sheegay oo golaha shacabka loo soo diray wuxuu ahaa ajanda aan la yaabnay ajandaha wuxuu leeyahay process iyo sharciyad la mariyo waxay ahayd guddiga joogtada baarlamaanka wuxuu ka kooban yahay guddiyo joogto uu leeyahay waxay ahayd guddiga joogtada in la soo marsiyo ajandahan kadibna guddiga arrimaha bulshada lagu wareejiyo sidaasna baarlamaanka uu ku imaado ajanda korka imaanaya annagu waxaan la yaabnay ahayd runtii waxaad ogtihiin maalmahan oo dhan dawladda federaalka inay lahayd bannaanbaxa lama ogolo oo waxaa jira cudur la yidhahdo COVID-19 in maanta kulan intaan la eg oo baarlamaanka lasugu yeero 200 oo nabadsugiida gudaha la soo geliyo haddee dareen kale oo gooni ah ayayna gelinaysaa waxaanu markaa ma aha COVID-19 iyo sheekadaanu waa sheeko extension looga socdo waxbaa ku hoos qarsoon ajandahan uu soo diray waxbaa ku hoos qarsoon dadku in la qalda ma aha dadka in la marin habaabiya ma aha waxaan waayahan oo dhan laga shaqaynayay waxaad ogtihiin madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka inuu shir ugu socday xalane madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha hadda madaxweynaadkiisa uu dhammaaday uu diiday inuu dadka la fadhiisto la hadlo si uu dalka doorasho u aado sidaa darteed kulankan maanta waxaa waaye oon rabnaa dadka inaan u sheegno soomaalida aan u sheegno in uu yahay kulan extension looga shaqaynayo baarlamaankana waa inqilaaban yahay waa baarlamaan inqilaaban waayahan oo dhan baarlamaanka waa iska inqilaabnaayo qilladu waa inqilaabnaa baarlamaanka waa inqilaaban yahay runtii madaxweynaha madaxweynaadkiisa uu dhammaaday ayuu baarlamaanka uu rabaa inuu sharciyad beena inuu siiyo waxaan ugu digaynaa xildhibaanada ama ummadda Soomaaliyeed dalkan inaan la gelin dhibaato iyo dib u dhac iyo fowdo iyo qalalaaso inqilaab inuu jiro waad u jeedaan 200 oo ciidan oo nabad sugida oo dhar cad ah la soo geliyay hadduu kulan caadi yahay maxaa laga soo doonay nabad sugida dadku ma aqligay leeyihiin waad u jeedin inaad ugu jeedaan waad arki kartaan kor hadda fuushaan waxa fadhiya ilaa iyo 100 dhalinyaro oo mas'uuliyadeed ah kor fadhida marka sidaa darteed aqalkaanu maanta waa inqilaaban yahay meeshaan u soconnana waa halkaas waxaa la rabaa 10 qofood inay ajanda beena keento la yiraahdo doorashaan ka hadlaynaa halkaas ayaa loo socdaa taas waa inaad ogaataan extension baarlamaan sharciyadiisa ay dhamaato xiladiisa ay 4 sano ahayd ayaa waxa la leeyahay wuxuu siinayaa extension oo ka shaqeynaya marka ummadda Soomaaliyeed waa ugu digaynaa aqalkaana maanta inay waxaas ka socdaan ayaan cadaynaynaa wanaagsantii